waxaa si degdeg ah isku casilay madaxweynaha wadanka Kosovo Hisham Thaxi maanta oo Khamiisa ka gadaal markii uu ogaaday in maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC ay furtay gal dacwadeed isaga ka dhana madaxweyne Hashim ayaa loo haystaa inuu ku lug lahaa dambiyo dagaal oo ka dhacay wadanka Kosovo shir jaraa'id oo gelinkii dambe maanta oo Khamiisa uu ku qabtay caasimadda Kosovo ee Pristina ayuu madaxweynuhu waxa uu sheegay in muhiim ay tahay inuu hilka iska casilo maadaama Hague ay u haysato dambiyo dagaal waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in sababta ugu weyn ee uu isku casilay ay tahay isaga oo dhowraya karaamada iyo sharafta shacabka Kosovo dacwad oogayaasha maxkamadda ayaa sheegay in madaxweyne Hashim uu ku lug lahaa ama uu mas'uul ka ahaa dilka ku dhawaad 100 qof oo rayid ah intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee dalka Kosovo intii u dhaxaysay sanadkii 1998 ilaa 1999 madaxweyne Hashim ayaa beeniyay dhammaan eedeymaha loo haysto ee ku qotama inuu ku lug lahaa dambiyo dagaal oo ka dhacay dalka Kosovo guddiyaha baarlamaanka wadanka Kosovo Fijosa Osmani ayaa la filayaa inuu noqdo madaxweynaha ku meel gaarka ah ee wadanka Kosovo dii lagu helo dambiga lagu soo oogay madaxweyne Hashim waxa uu noqonayaa hogaamiyihii ugu horeeyay oo isaga oo talada haya dambi lagu soo oogo ICC ay baada goobaysaa tiro madax ah oo ay ku tilmaantay in ay galeen dambiyo dagaal waxaana xusid mudan in madaxda hadda ay raadinayso ICC uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee wadanka Suudaan Umar al-Bashir fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe si aad u daawato xog walba halkan soo dhigno